barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Waaberi oo kamid ah degmooyinka ugu horeeyay ee gobolkan Banaadir. degmada Waaberi waxaa dhul ahaan loo cabiray sanadkii 1957 waxaa bixiyay duqii magaalada ee xilligaas oo la oran jiray Ancelotti kaas oo u dhashay dalka Talyaaniga. sanadkii 1972 ayaa asalka magaca degmada iyo calankeedaba waxaa yagleelay Maxamed Cabdi Yuusuf oo uu aabihii kamid ahaa halgamayaashii Soomaaliyeed ee ku dhintay dagaalka dhagaxtuur ee ka bilowday degmada. waxay qayb ahaan ku taalaa afarta qaybood ee gobolka Banaadir. qaybtiisa waliyo cadde waxa ay xuduud la leedahay 6 degmo oo kala ah Warta Nabadda, Xamar Jajab, Wadajir, Hodan, Howlwadaag iyo Xamar Weyne. degmada waxa ay ka kooban tahay 4 waaxood oo kala ah Hanti Wadaag, Oktoobar, Horseed iyo Maajo. goobaha la garan og yahay ee degmada waxaa kamid ah taalada dhagaxtuur, masjidka Isbahaysiga Islaamka, taalada Israel, beerta Nabadda, iskuulka farsamada gacanta ee Polytechnico, iskuulka 21 Oktoobar, Shaneema Soomaaliya, masjidka Muuse Boqor, Xero Kalluun, iskuulka Maxamuud Mire, Umbultooriyada Ceelgaabta, iskuulka Raaga Ugaas iyo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan. dadka ku nool degmada wuxuu nolol maalmeedkooda ku tiirsan yahay ganacsiga maalinlaha ah iyo xoogsiga. waa degmo ay ku nool yihiin dad lagu tiriyo in aysan dhib badnayn, waxaana degan dad isku dhaf ah oo iswalaashada sida ku cad halhayska ay ku caanbaxeen ee ah Waaberiyo wanaagsanow walaalihii waa iswataan. degmada Waaberi waxaa deganaa mas'uuliyiin magac ku dhex leh ummadda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynihii dawladda kacaanka Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo deganaa gurigan idin muuqda ka hor inta uusan xukunka la wareegin. waxaa sidoo kale ku yaalo gurigii uu ku dhashay kuna soo barbaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. degmada waxa ay leedahay 2 MCH, mid waxa uu ku yaalaa afaafka hore ee xarunta degmada halka midka kalena uu ku yaalo isgoyska Ceelgaabta. dabagalka oo si xirfadaysan u dhex istaagay 2 MCH ayaa ogaaday in ay shaqeeyaan labaduba dadkana loogu adeego si bilaash ah. MCH-ka Ceelgaabta ku yaala howlwadeennada ka shaqeeya waxa ay si toos ah u qaataan mushaarkooda, walow MCH-ka kale ee aan ogaanay in aysan mushaar helin 2 bil ee la soo dhaafay. gudoomiyaha degmada Waaberi waa Cabdicasiis Ismaan Jaamac, mana jirin shaqo dawlad hoose oo ka horeysay midda uu hadda u hayo oo uu soo qabtay. waxaa keensaday xildhibaan Abtidoonyare oo ay isku heeb yihiin. gudoomiye Cabdicasiis oo kamid ah 3 gudoomiye degmo oo dhaxal ku yimid ayaa degmada loo dhiibay 2 bishii December ee sanadkii hore 2019, waxayna magacaabistiisa timid 4 bil kadib markii uu qarax ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar uu ku dhintay gudoomiyihii hore ee degmada Allah u naxariistay Mahad Cilmi. 28 jirkan ku yimid rabitaanka odayaasha beeshiisa ayaa kamid ah tiro gudoomiyaal degmo oo aan ku hooyan degmada ay ka taliyaan, wuxuuna ka soo kacaa degmada Warta Nabadda oo daris dhowla ah Waaberi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada waa Jamaal Cali Axmed, waxa uu degan yahay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. xafiiskiisa degmada ayaa ah mid iska xiran, waxaana xogo lagu kalsoonaan karo ku helnay in uu ururtay gurigiisa alaabtii tiile xafiiska halkaasna ku qabto wixii shaqo ah oo loo soo waco. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo loo garan og yahay Cali Jareere waxa uu gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha dhalinyarada hore uga soo noqday degmada Xamar Jajab, waxa uuna degan yahay degmadii hore uu xilalka uga soo qabtay ee Xamar Jajab, taas oo ka dhigan 3 mas'uul ee ugu sareysa degmada ay ku hoydaan meel ka baxsan degmada ay maamulaan. dhammaan waaxyaha degmada ee 4 ah ayaa ku shaqeeya gudaha xarunta degmada, waxaana laga yaabaa in aad isweydiiso sababta waaxda Oktoobar oo dhowaan loo dhisay xarun cusub isla markaana xariga laga jaray ay ugu shaqeyso xarunta degmada dhexdeeda. dabagalka oo soo ogaaday sababta ayaa xaqiiq ku helay in cabsi amni darteed albaabada la isugu dhiftay xarunta waaxdan Oktoobar oo loo qalabeeyay in ay ku wada shaqeeyaan waaxaha kala ah Oktoobar iyo Maajo. qaar ka mid ah laamiyada dhexmara degmada ayaa burbursan sida Via Liberia iyo Via Uganda oo ah wadada ka soo baxda isgoyska dabka ee hormarta xarunta degmada. waxaa sidoo kale dayacan oo burbur, carro tuur iyo nadaafad darro ka jirta wadada dheer ee loo yaqaano Via Moscow oo ah midda isku xirta isgoyska Afasioni iyo Ceelgaabta. qaarkiin waxaa laga yaabaa in aad isweydiisaan
sababta magacan ay u baxeen wadooyinka. boondada hoos marto waa wadada ceelgaab tagaysay waxaana la wadadan Via Mosca la waxa kale oo jirto wadada degmada hormarto wadadaasna waxa la Via Uganda waxaana furay Alxaaji Idi Amin Dada madaxweynihii dalka Uganda waxa ku sii xigo wada kale oo Liberia Via Liberia loo wadadaasna waxa furay madaxweynihii dalka Liberia William Tolbert munaasabadaha hadda oo xilliyada sanad guurada kacaanka markii la gaaro ayaa mashaariicda badan la furi jiray madaxda ka soo qayb gasho ayaa lagu sharfi jiray inay wadooyinka ay furaan. Jidka dheer ee ka soo baxa isgoyska kiiloomitir 4 ee aada Afisyooni ilaa isgoyska Ceelgaabta oo hore looga hirgeliyay leerarka cadceedda ku shaqeeya ayaa ah mid mugdi xilliga habeenkii kadib markii cilad ku timid leerarka ku xirnaa mana helin wax dayactir ah. Wadada Via Liberia iyo jidka dheer ee ka yimaada isgoyska dabka isla markaana hormarta xarunta degmada ma lahan wax leer ah oo waa mugdi. haweenka ka shaqeeya nadaafadda degmada ee loo yaqaan malaamileeda oo aan helin xaquuqdooda ayaa degmada ka dhigtay mid uu qashinka la dagay. waxaa la siiyaa kaarar lagu qaato raashin oo aan joogto ahayn. waxa uu dabagalka ogaaday in qofka kaliya ee mushaar qaato ee ka mid ah haweenka ay tahay Iisha Cabdi oo ah gudoomiyaha haweenkaas. qashinka aruurinay aawudeed inaan ku rafaadno ku silacnay waxna noo qabtay ma jiro hadaa anaka imaana dad kala meel kale lagu soo qaraa la siinaya $5 lagu fariisinaya $5 lagu fariisinaya anaka hadaa tagnana dhagaxay lagu soo fiirinaya. garoonka fuustalka ee degmada oo ay ku ciyaaraan dhalinyarada degmada ayaa laga kireeyaa. waxaa saacadii lagu qaataa $12. waxaa si toos ah loogu ciyaaraa 6 saacadood taas oo ka dhigan in maalintii $72 ay ka soo xarooto. haddaan bil ka dhignana waxay noqonaysaa $2160 halka sanadkii ay noqonayso $25920 mana ku dhacdo lacagtaasi akoonka dowladda hoose ee Xamar. maamulka degmada ayaa wada qorshe ay ku doonayaan in ay gataan 2 motor oo muddo dhex yaala degmada kaas oo degmada siin jirtay koronto balse hadda laga maarmay. motooradan oo 3 ahaa ayaa waxaa midkii kala qaatay gudoomiye Mungaab xilligu uu ahaa duqa magaalada Muqdisho. waxaa la geeyay xarunta maamulkiisa oo ku taalay aaga Hotel Ramadan ee degmada Hiluwa walina lama soo celin. suuqa beerta oo ka mid ah goobaha loo soo dalxiis tagi jiray hadda waa suuq. waxay dowladda hoose ku amartay dadka ku ganacsada in ay baxsadaan lacag lagu cabirayo dhulka suuqa si loogu dhiso. waxaa hadda ganacsatada suuqa laga qaadaa lacag maalinle ah oo aan soo dhaafin askarta aruuriso iyo maamulka degmada. degmada Waaberi waxa ay ka mid tahay degmooyinka nasiibka u yeeshay in amnigeeda gacanta loo geliyo wiil ku dhashay ku koray wax ku bartay aadna u kala yaqaan xaafadaheeda. waa Maxamed Cabdulqaadir oo loo garan og yahay Mooshin. waxa uu ka mid yahay tiro taliyayaal booliis degmo oo laga safay darajo aysan tababar shaqo iyo khibrad midna ku mutaysan. Mooshin oo hore degmada Waaberi uga soo noqday gudoomiyaha waaxda waxbarashada ee dhalinyarada ayaa waji aan la aqoon ula soo baxay dadkii uu ku soo dhex koray kadib markii loo magacaabay taliyaha booliiska saldhigga Waaberi. waxa uu shaqo ka bilaabay baacsiga dhalinyaradii ay isla soo koreen halkii uu soo dhawaysan lahaa si ay ugala shaqeeyaan amniga degmada. wiilkan gacanta fudud iskuna qaldo sharciyada booliiska iyo nabad sugidda oo uu dhawaan shaqo joojin ku sameeyay taliyaha booliiska Soomaaliya dibna hadda loogu fasaxay shaqadii uu degmada ka hayay ayaa u muuqdo mid degay fahmayna shaqada loo igmaday. waxaana dadka degmada noo xaqiijiyeen in uu si wanaagsan ula dhaqmo isbedel weynna ay ka dareemayaan. xaafadaha degmada qaarkood waxaa dadka taleefanada gacanta iyo waxa la mid ah looga qaataa bistoolado sida xaafadda UNICEF Cali Boolay Shineema Sargaduuda aaga buundooyinka iyo qaybo ka mid ah xaafadda Maajo. waxay dadka deegaanka qaarkood noo xaqiijiyeen in xaafadda ku hareeraysan xarunta degmada kaliya loo dhigay askar si ay uga hortagaan falalka dhaca ah. xiriirka wada shaqeyneed gudoomiyaha cusub ee degmada ku-xigeenadiisa oo aan wanaagsaneyn iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada oo amarka ka qaato meel ka sarreyso degmada ayaa degmada ka dhigtay mid dayacan. waxaa laga gaabiyey dhisidda laamiyada muhiimka u ah degmada, furidda jidcadayaasha xaafadaha, nadaafadda, adeega bulshada iyo amniga.
سين أنا بقول حسابي بدومين دقمة حافظ على صالح حسابي وح لي قبل كلام مجرد حقيقتنا واساس ضدك الصومالية وصبر هاي المدة لكن وحي كسعتها ساعد وحي كسعتها وقت جي صبر كنا مالها أول ده لها عن شورت أديك قاضي آوي سكول ما كود استي اسبتال ما كود استي أقول ما كسيسي جيت ما كود استي بعيال ما كود قدي كرنت ما كود جليسي حساب تاسو وإيمانيسا haddaba sidee degmo bulshada degan uga qaban kartaa adeegii ay u baahnayeen oo dhammaystiran inkasta oo dhibaatooyinkan aan soo sheegnay ay jiraan haddana waxaa muhiim ah in afkaarada iyo talooyinka qaarkood ee la soo jeediyay aqoon-yahanada la qaato mar kale waxaa lagu talinayaa in degmada iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ay u baahan yihiin taladan amba macna sameeyay marba hadii gudoomiyaha gobolka iyo degmada iyo taliyaha booliska iyo gudoomiyaha maxkamadda iyo laanta iyo kulli iyo la magacaaba iyo waaxyaashi la magacaaba iyo villa Soomaaliya magacaabayso waa property ay leedahay iyada iskale marka waxa laga codsanaa macnaha hadda macnaha isku duuduub macnaha tafaariiq ma ah isku duuduub Muqdisho waxay rabtaa dadka degan inay helaan maamul ay doorteen madaxweynuhu intaas ku kaalmay maxamuud alxaaji barnaamijka dabagalka degmooyinka magaalada Muqdisho.